waxaa maanta magaalada Buuhoodle si weyn loogu soo dhaweeyay abwaan qoraa Cismaan Cabdinuur Xaashi oo ka soo kici timay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ururada deegaanka oo ugu horeeyay naadiga akhriska iyo qoraalka oo Jaamac Umar Ciise oo soo qaban qaabiyay soo dhaweynta abwaanka dhinaca kale waxa isaguna soo dhaweynta iyo imaanshiyaha abwaanka si weyn uga qayb qaatay Xuseen Aadan Kanee oo kamid ah qurba joogta deegaanada SSC abwaanka ayaa habeenada soo socda qaban doona bandhigyo kala duwan waxaana ugu horeyntii halkan ka hadashay gudoomiyaha ururka aw Jaamac Umar Ciise Nasra Cabdirasaaq Cabdillah raxiim maanta waa maalin weyn waxaan soo dhaweynaynaa ustaad qoraa saxafi Cismaan Cabdinuur Xaashi iyo maama Marwo Aamina Yuusuf Gahaad xaqan waxa isugu yimid dhamaan dhalinyarada reer Buuhoodle iyagoo kala harin waxay u taagan yihiin soo dhaweynta ustaadka iyo maama Marwada marka waxaan ku faraxsanahay inay soo booqdaan oo deegaanka yimaadaan sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inay inta jidka dheer u soo maraan si deegaankooda wax ugu faa'iideyn lahaayeen aqoontooda uga hadlaayeen ustaadka iyo maamadu waxay ku casuumayeen barnaamijyo kala gedisan oo magaalada ka dhici doona barnaamijka ugu horeeya wuxuu dhici doonaa habeenka Jimcuhu soo galiyo barnaamijka ku xigana wuxuu dhici doonaa habeenka Sabti soo galiso waxaan rajaynayaa inay reer Buuhoodle ka faa'iideysan doonaan aqoontan ay kala hadli doonaan dhaxalna aynu kala hadli doono waxaan leeyahay ku soo dhawaada deegaanka waa deegaankeeni marti ma tiidin laakiin waa mudaysateen in la soo dhaweeyo soo dhawaada inta waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa abwaanka weyn ustaadka qoraaga Cismaan Cabdinuur Xaashi iyo marwadiisa sharafta badan leh annaga u taagan dhalinyarta gobolka Cayn waxaan leenahay ustaadka soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow noo faa'iideey deegaanka iyo dadka iyo dhalinyarta iyo wixii xigmadaada iyo aqoontaada waxaan doonaynaa inaad nooga faa'iideyso insha Allah ta'ala soo dhawow Rahmaan Rahiim maanta waxaan halkan u taaganahay soo dhaweynta haliyeyga ustaadka saxafiga qoraaga abwaanka Maxamed Cismaan Cabdinuur Xaashi iyo maamo Aamina Guhaad oo ah marna Maxamed Cismaan Cabdinuur Xaashi hooyadii sidoo kale kabtan dhalo hooyadii Ilyas hooyadii oo run ahaantii dad sharaf mudan bay dhashay oo aan halkan ku xusino oo run ahaantii deegaankayga iyo dalkaba qiimo ku leh waxaan leenahay hooyo iyo abwaankaba soo dhawow raxiim ilaahay waa mahad iska leh maanta oo taariikhdu tahay 9 bisha 9 2020 halkan aynu joognaa duleedka magaalada Buuhoodle waxaan ku soo dhaweynaynaa abwaankeena iyo ustaadkeena Cismaan Cabdinuur Xaashi loo yaqaan og yahay khaliifka iyo maamo Aamina Yuusuf Gahaad waxaan leenahay ku soo dhawaada maanta Buuhoodle waxay uga dhigan tahay maalin uu soo booqday madaxweyne oo kale iyo marwadiisii waliba dadka madaxda ahi iyaga marka la soo dhaweynayo kharashaadka soo dhaweynta waxyaalaha iyaga soo diro yiraahdo gaariyaal iyo dad noo soo tuba laakiin waxaad moodaa dhalinyarada maanta halka joogta dhamaantood inay yihiin dad soo xilqaamay taariikhdu tahay 9 bisha 9 2020 waxaan u taaganahay soo dhaweynta ustaad dhaqan-yaqaan afyaqaan suxufi ustaad Cabdinuur Cismaan Xaashi khaliifka iyo marwadiisa Aamina Yuusuf Gahaad imaashiyihiinu farxad bunoo yahay waxaan dhalinyaro quruxda badan iyaga soo xilqaamay si wajiyada quruxda badan aqoon-yahanadaas deegaanka soo gaaray ay uga faa'iideystaan waxaan leeyahay reer Buuhoodle waalidku yaqaanay soo dhaweyntii marsoorka insha Allah ustaadka iyo marwada waxa jira barnaamijyo badan oo loo qaban doono mid waxa la qabanayaa haduu Ilaahay idmo habeenka Jimcuhu soo galayo taariikhduna ku beegan tahay 10 bisha haduu Ilaahay idmo waxa lagu qabanayaa hoolka jaamacadda Bariga Afrika ka labaadna waxa la qabanayaa habeenka ay soo galayso Sabtidu waxayna kaga hadlayaan taariikh nololeedkoodana wax badan baynu ka faa'iidi doonaa haduu Ilaahay idmo dhalinyarada quruxda badan ee halkan joogta warahmatullaahi wabarakaatuh dhalinyarada quruxda badan ee hablayn walba isugu jira aad baan ku mahadnaqaynaa magaalada ka soo boqolee xilifka laga hor yimid sida qiimaha iyo qaayaha leh aad soo xilqaanteen aad uga timaadeen hawlihiinii oo dhan soo dhaweynteeda iyo qadarinteeda iyo maamuuskayaga anaguna mid intaa ka badan baanu idiin haynaa Buuhoodle waxay ugu dambaysay 2005 haddeena waxaa muuqata magaaladu inay intaasoo kiiloomitiro fara badan korodhay waan arki doonaa horumarkeeda oo ku faraxsanahay iyo gobonnimadeeda waa hooygii suugaanta Soomaaliyeed oo hooyadii daraawiishtu ma jirteen Buuhoodle la'aanteed carraseed magan baa keentay Maxamed Cabdullah Xasan hooyadii ahayd halkana ay ka raaceen abtiyaashii
soomaali oo dhan bay xoreeyeen oo dhiiggooda u daadiyeen idinkuna ubadkoodii baad tihiin hidda iyo dhaqan iyo taariikh baad u leedihiin soo dhowaynta iyo gobonnimada iyo sharafta aad baan idinku mahadnaqaynaa waa idiin ducaynaynaa adduunkana cisi ku noolaada aakhirana jannada firdowsa si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa naadiga akhriska iyo qoraalka ee awsaam cumar ciise ibraahim cabdiqaadir jabaan warbaahinta kalshaale buuhoodle